kulanti wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel walba oo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka sahanka nolosha oo aan idinkaga soo tabinayo magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Toddobaadkan barnaamijka sahanka nolosha waxaa inoogu martiya isla markaana aan ku wareysan doonaa Sheekh Maxamed Idriis Axmed oo kamid ah culimada diinka Soomaaliyeed. Ogoran Sheekh Maxamed Idriis kusoo dhawaada barnaamijka sahanka nolosha. waatahay intaan u gudbin siyaasadda iyo islaamka bal aan ku hormarno mashaariic qeyri ah inta badan ka waday dibadaha sida Europe iyo America iyo Africa iyo mashaariicdaas qeyriga ah maxaa idin diidan in aad u soo wareejisaan Soomaaliya maadaama baahi badan ay u qabto in maanta laga hirgeliyo isbitaalada iyo iskuulo waxyaabo la midka ah. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waa ku mahadsantihiin waraysiga iyo inaan xog idinka siiyo arrimaha ku saabsan dacwada iyo waxyaalaha aan wadno oo activitieska ah ama nashaadka anagu waxyaalaha khayriga hadda anigu Mareykanka aan deganahay inta badan waxaan ku leenahay golaha imaamyada Soomaaliyeed waxaana ay hayaan in ka badan 28 markas jaaliyad weyn oo Soomaaliyeed ayaa u qaxday saad ogtihiin waqooyiga Mareykanka dadkaasuna waxay u baahan yihiin diintoodii iyo dhaqankoodii iyo luqadoodii iyo kulliba loogu ilaaliyo inay helaan maraakista dacwada oo masaajidii iyo markaskii iyo dhalinyartii meesha wax ku baran lahaayeen iyo quraankii meesha wax lagu baran lahaa sidaas oo kalena Yurub ayaa looga hirgeliyay sidaas oo kaleeto Afrika iyo wadankan aan joogno laftigiisa golaha albayaan ayaa ka jira saad ogtihiin oo masaajida badan oo ilaa 18 maraakis ay hoos yimaadaan wadanka Koonfur Afrika oo dhan madaaris badan ay hoos yimaadaan taas waxay keentay maadaama Soomaalidii gudaha iyo dibadda u kala qaybsantay burburkii Soomaaliya kadib qarankeedii in ay tahay waajib dadna inay gudaha ka shaqeeyaan ee wadankii asalkii laga shaqeeyo dadna inay dibadii jaaliyadii ka shaqeeyaan si aan caruurtii iyo usartii maadaama Soomaaliya ay dibadii iyo gudaha u kala qaybsantay oo kala barba ku dhowdahay inta dibadaha jira marka anagu dhinaca dibadda baan xooga saarnaa gudahana waa ka shaqeynaa macnaheedu maaha inaan dibadda aan joogno inaan gudahana ka caawin maraakis badan baa jira iyo jaamacaad iyo iskuulo iyo kulligeed aan ka qayb qaadanay oo aan ka gacan geysanay wadanka in laga asaaso culimo kale badanna wadankii bay nashaadkii ka wadaan oo waan tacaawunaa waana iskaashanaa. Sheekh Maxamed Idriis dad badan oo Soomaaliyeed oo daafaha dunida jooga waxay aad u danaynayaan ama jecel inay wax badan ka ogaadaan dacwad kugu furneed oo muddo dhaweetay umada gaartay marka maxaa lagu soo eedeeyay halkeesa dacwadii ku maraysa hadda akhi way jirtaa dacwadaasu 2012 bishii October ayaa la furay waxaana salka ku haysay safaradeeda badan iyo dacwada adduunka aan u maro saad ogtahay jaaliyada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan adduunka way casuumaan waana u tagaa shirarkooda iyo golayaashooda ayaan ka hadlaa wixii tabartayda ah baan ka geystaa dacwada marka laamaha ammaanka oo arrinkaas dabagaladaas u sameynayay oo laga yaabo tuhniinay waxa ka qabeen bay ku salaysnayd kadibna waxay soo tarxiyeen ama maxkamadda u gudbiyeen in marka laga qaado citizenka ama sharciga dhalashada Mareykanka oo aan haysto in marka la qaado laga ceshado iyada oo ay ku andacoonayaan inaan markaas qalad aan ku qaatay ama safaradayda ama waxyaalaha la xiriira ay noqoto marka annaguna loo yaraan qabsanay alxamdulillah dadka Soomaaliyeedna meel kasta ay joogaan walaalahaya way ga caawiyeen kharashkeeda wayna socotaa qadiyada haddana waxaa loo dibdhigay adiga sanadkan hadda cusub 2016ka markii hore waxay ahayd waqtiga September inay dhacdo xajkii anoo u socdo baa la yiri way dhacaysaa kadibna ilaahay fadligiis dib baa haddana loo dhigay xajkii alxamdulillah waan aaday kadibna dib baa loo dhigay hadda ilaa bisha afraad sanadkan cusub insha Allah taala waxaan rajaynayaa inay khayr ku dhamaato waxaan naga u soconaana hadda waa wax cad oo clear ah iyagana u sheegay anigu waxaan tagaa oo u safraa safarkayguna u badan yahay waa jaaliyadaha Soomaaliyeed ee adduunka ku firaqsan doonayay inaan u tago iyagu iyo casuumaha iyagu maaragtay kharashka bixiya tigidhadaas iyo qolo walba meeshaan u tagayo ama Afrika ama hadda sidan Cape Town ku joogo ama Europe ama Mareykan ama Canada meesha kasta ay noqoto wax kale oo iyaga qarsoon oo maaragtay ka hooseeyana ma jiraan hadaladayda iyo muxaadaraadkayga iyo duruusteedina meel kasta ku jiraan YouTube-yada iyo dadka ku jiraan waxaan dadka kula talinayaa oo diinta islaamka iyo inay dhaqankooda iyo diintooda haystaan dadka Soomaaliyeed intaas weeye dacwadaas ilaahay idankiisna waxaan rajaynayaa guuleysanayno dadka muslimkaana walaalaha meel kasta ay joogaan ducadooda ayaan ku soconaa inay ducadana soo wadaan insha Allah taala
waa tahay sheekh maxamed idriis dad badan ayaa ku wareersan inaysan isla jaan qaadi karin ama aaminsan aan iraahday inaysan isla jaan qaadi karin siyaasadda casriga ah iyo weliba diinta islaamka marka arrintaas maxaa jawaab ugu dhihi lahayd arrintaasu sax ma aha oo waa qof aan markaa fahamsanayn de diinta islaamka waxay u timi sidaan ognahay nolosha qofka muslimka oo dhan inay hagto oo ay maamusho xagga cibaadadiisa isaga iyo rabbigii subxaanahu watacaala waxa u dhexeeya xagga akhlaaqda iyo dabeecadda xagga isaga iyo xiriirka dadka u dhexeeya sidaasoo kalena xagga maamulka noloshiisa dhinac kastoo ay tahay marka qur-aanku intaasuna u qeybsan yahay iyo dhammaan nolosha qofka muslimka oo dhan dhinac kastay tahay hadday tahay xag cibaado hadday tahay xag dhaqan hadday tahay xag siyaasad hadday tahay xag dhaqaale qur-aankana intaba waa ka heli karna arkaanta islaamka waxaa kuugu fudud inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin walmuhaajiriin walcaamiliina calayha walmualafati quluub zakada 8 sifo buu ilaahay subxaana watacaala siiyey zakadu maalkii bay ka sheekeynaysaa dhaqaalihii bay ka sheekeynaysaa ma garanaysaa islaamka bay asal u tahay rukun u tahay marka dadkii masaakiinta ahaa iyo dadkii jidka marayay ee waxla-aa iyo bulshadii horumarinteedii in la hormariyo oo welfare system waxaa hadda masalan lagu magacaabo la yiraahdo ay yeelato ma waxaan oranaynaa waa siyaasad dhaqaale mise waxaan oranaynaa waa islaamkii waana siyaasad dhaqaale ismana diidayaan sidaasoo kale islaamku wuxuu ka hadlayaa qur-aanku wuxuu ka hadlaa xiriirka annaga iyo gaalada noo dhexaysa annaga iyo dadkaan muslimka ahayn annaga iyo dowladaha kale muslimiinta iyo dadka kale waxaa xiriir nabad iyo heshiis ima dagaal wixii dhex maraya oo dhan inuu hago marka isku soo duuduubo islaamku waa nolosha oo dhan inuu maamulo sidaasaa la rabaa qofka muslimka inuu u fahmo siyaasadina kama baxsana dhaqaalina kama baxsana xukun iyo maxkamadina kama baxsana dhammaanteed wuxuu u hayaa wixii lagu maamuli lahaa waa tahay sheekh maxamed idriis soomaaliya waxay qaadatay wax loo yaqaano federaal marka hadda in badan soomaaliya waxaa laga hirgelinayaa federalism iyo waxyaaba lamid ah marka soomaaliya maanta ma u qalantaa oo suuragal ma tahay in dhibaatooyinkii soo jireenka ahaa ay xal u noqoto arrintaas federalismka islaamku wuxuu u xadidaa dadka maadaama uu u yimi oo u soo degay wakti walba iyo meel walba ilaa saacaddu ay ka dhacayso inuu maamulo waxyaalaha tafaasiishayo hoose ma galo waxaa lagu siinayaa guidelineska waaweyn ama yacni tallaabo jidadka waaweyn oo ku hagaya for example aan tusaalan kaa siinaya masalan dadku inay madaxdooda doortaan buu islaamku oo raalli ku noqdaan madax ay iyagu raalli ka yihiin dadku inay u taliyaan saasuu islaamku qabaa in xoog lagu jajuubo in lagu yacni khasbo in cid aanay maaragtay iyagu aanay dooran loo dooro ma qabo islaam waxaana kugu daliila nebigu calayh isalaatu wasalaam isagaa ummadda diin ahaan iyo siyaasad ahaan iyo nidaam ahaan kulligeed iyo dowlad ahaan u maamulayay marka uu dhintay nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu bixiyey tilmaamuu bixiyey laakiin ma cayimin qofka ka dambeynaya laakiin way iska muuqatay nebigu alayh salatu wasalaam inuu abubakar uu yahay qofka ugu wanaagsan ummadan ee hegi kara ee nebiga alayh sala slam ka dambeeyey laakiin nebigu ma magacaabin magacow sariixa ma magacaabin kadibna saxaabadii oo dhan baa isku raacday kadibna muslimiintii kale ula yimaadeen muslimiintii kale oo dhanna way ku waafaqday inay abubakar markaa doortaan saasaa lagu doortay abubakar oo khaliifadii labaad oo cumar radia allahu canhu abubakar baa sii cayimay oo magacaabay laakiin cumar intuu masaajid ka istaagay wuxuu yihi waa lay magacaabay haddaad raalli ka tihiinna waan haynaya haddii inaan raalli ka ahayna halkaasaan ka baxaya sidaasaa isagana dhammaan loogu raalli noqday macnaa waxaan ka wadaa islaamku mabda-ii buu dejinaya dadka muslimiinta ah xaakimkooda ama qofka u talinaya iyagaa dooranaya laakiin qaabka doorashadaas u dhacayso sanduuq baa lagu ridaya ma codad baa la qaadaya ma dadkaa la weydiinaya ma intikhaab baa la samaynayaa iyo doorashaa la samaynaya ma dad baa isa soo sharaxaya oo qolo mucayana lasoo sharaxaya waxaaso dhan waa tafaasiil hoose marka islaamku horta sidiisaba waxyaalaha saasuu u xadidaa waaweyn federaal miyaan qaadana mise federaalku wuxuu ka mid yahay sistemyada la ysku xakumo macnihiisuna waxa waaye dowlad dhexe oo maaragtay ka dhexaysa awoodda in loo qaybiyo iyo gobollo iskood isu maamula waxyaalahooda iyagu ay leeyihiin ee gaarka u ah iskood isu maamula
noocaasa loo yaqaan. dowlado badan baana adduunka ku dhaqma, wax dhibaa ma laha in lagu dhaqmo. laakiin anigu waxaan qabaa waktigan xaadirka ah Soomaali dowladeedii dhexe ma dhamaystirna, ma laha. dowladdii dhexe ciidankeedii waa maqan yahay, dowladdii dhexe dhaqaalaheedii waa maqan yahay, dowladdii dhexe muasasaadkeedii oo fadhiya waa maqan yahay, dowladdii dhexe dastuurkeedii oo wadanka dowladnimadiisa lagu maamulo weli waa maqan yahay, waa kala dhiman yahay. iyadoo waxaasoo dhiman yihiin in la kobciyo oo lasoo saaro dowlado kale oo isaga la u dhigma ama kaba xoog badan, waxaan u arkaa inay tahay burburin la burburinayo dadka oo la isku diraayo. waa tahay sheekh maxamed idriis, waxaa ka dhawaajisay arrimo hoosaadka sida in dad la doorto iyo qaabka loo dooran lahaa diinta kamaysan hadlin in ay u tiraan jecla hadda. taas marka bedel ma noqon kartaa in bulshada ay samaysato constitution ama dastuur bulshadaas u gaar ah oo arrimahaas u qeexaya? sidiisu yahay diinta islaamka maxay qasab ka qabtaa constitutionka? wax dhiba ma laha constitution in la sameeyo. constitution waa heshiis, ummadan baa waxay ku heshiisay qodobada soo socda. shardiga waxa weeye qodobadaas inaanay khilaafin kitaabkeena iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam, laakiin constitution waa la samaysan karaa. waa tahay sida inaad la socotaan jeclahay, dhowaan waxaa magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyey shir loogu magac daray madasha wadatashiga Soomaaliya ee 2016. door noocee ayay ku lahayn shirkaas ee culimada diinka Soomaaliyeed? ma maqal culimo loogu yeeray shirkaas, ma maqal, mana arkin. saas darteed in lagu magacaabo madasha wadatashiga Soomaaliyeed waxaan u arkaa inay ku jirto buunbuunin oo ummadii Soomaaliyeed oo dhan in lagala tashaday macnaheeda ay muujinayso. arrinkaasuna arrin dhacay sida ay la tahay ma aha. ummadda Soomaaliyeed waa in lagala tashadaa qaabka ay madaxdooda iyo dowladnimadooda waxa ay noqonayso. doorashadaasuna waa inay noqotaa mid xalaalaho tashi wada tashi xalaalaho muuqda waa inuu noqdaa. yani marka in lagu magacaabo oo waayadan dambe adduunka Soomaaliya waxa iska soo dhacday hadba qolo ama group ama organization baa wuxuu rabaa magacii Soomaaliyeed oo dhan inuu qaato dadkana afduubkaasna ma dhici karo. waxaa la yiri Soomaaliya 4.5 baa lagu socdaa, waxaana maaragtay hadda lagama gudbi karo doorasho one vote one man ama hal qof iyo codkiisba ma dhici karto. idan waa inaan waxyagii hore ku soconnaa ama qaababkii hore ku soconnaa. ummadiina waxba lagama weydiinayo. taas aniga inay dhacday uma arko. waxaan u arkaa dadka Soomaaliyeed inay qaangaar yihiin, yaan laga dhigin xaqoodana yaan la qaadin, yaan laga duudsin. ummadda Soomaaliyeed hadday dibad joogaan iyo hadday gudan joogaan aayatiinkooda way ka talin karaan, waxna way dooran karaan. in doorata wax qaabkii loo maamuli lahaa iyo qaabkii wax loogu dhisi lahaana way leeyihiin, kartideedana way leeyihiin, doorashadeedana way leeyihiin. dalka dhul badan baa nabad ah oo ay ka hirgeli kartaa in la qiyaaso. adduunka siyaabo badan baa wax loo qiyaasaa. ya hadda marka aad qiyaasaysaan ra'yigu meesha u socdo labada nin oo tartamaya masalan wadamada waad aragteene meelaha ama organisationada ra'yiga qiyaasaa 2,000 oo qof 3,000 oo qof bay weydiinayaan ra'yi qiyaas bay la soo baxayaan. macnaheedu maaha inay 40 milyan ama 50 milyan oo South Africa ah ay weydiiyeen ama 80 milyan oo jooga UK ay weydiiyeen, ma aha. waxay weydiinayaan 5,000 oo qof ra'yigu siduu u socdo baa la qiyaasaya. Soomaali miyaa laga waayay in la yiraahdo bal kala doorta qaabka aad u dooranaysaan meel heblaay iyo meel heblaay iyo meel heblaay doorasho ka dhacdo oo hal la fiiriyo dadka ra'yigooda. waa tahay sheekh maxamed idriis, shirkaas hadda aan ka hadalnay shir daba socda ayaa muddo aan sii fogeyn wuxuu ka furmi doonaa ama ka dhici doonaa magaalada Kismaayo hadduu Ilaahay idmo. waxaa dhici karto in la isku afgarto in doorashada soo socota lagu saleeyo 4.5 ama 4.5. marka ma jiri kartaa waddo kale oo arrintaas looga bixi karo sida ra'yigaadu u yahay? way dhici kartaa. waxa weeye hala sameeyo. dadka Soomaaliyeed waxay leeyihiin dad aqoon-yahan, waxay leeyihiin dad culimo ah, waxay leeyihiin dad waxgarad ah, gudo iyo dibadba. magaalooyinkooda iyo degmooyinka ay degan yihiin gudo iyo dibadba waa la garan karaa. hala qiyaaso, hala sameeyo commissioner saasa ha tagaan. doorasho dadka Soomaaliyeed si toos ah wax loogu weydiinayo waa inay dhacdaa, walow dhul koobanba ha ka dhacdo, meelo koobanba ha ka dhacdo. ha muuqdo dadka Soomaaliyeed calal aqal sida ra'yigooda u badan yahay oo ay rabaan dalkooda in loo maamulo, aayatiinkooda looga taliyo. ha igu khasbin ima dhihi kartid mar walba aniga 4.5 baad ku khasban tahay, kadibna dad mucayana oo loo talay shaarkaas keliya oo maaragtay ka baayac mushtara systemkaas keliya iyagu bartay inay ka baayac mushtaraan Soomaali masiirkeeda ama aayatiinkeeda inay ku afduubaan. arrin sax ah uma arko. Soomaalina salka u dhigi karaa uma arko. afduubkii inuu iska socdaa bay noqonaysaa, in lagu shaqaysto corruptionkii iyo wixii caabi iska socdaan bay noqonaysaa. dadka Soomaaliyeed waa in wax waleedeeyaa taladana lagu soo celiyaa. taasna dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay iyaga xaqooda soo dhacsan kara.
inta iyagu leeyihiin hay-ado kale iyo dad kale taa wax noo samaynaya oo noo maalgelinaya oo ajnabi baa noo samaynaya ma filayo soomaalida inay salka dhiganayso dowladnimadeeda inay soo noqonayso. maqsuudku waxaa weeye ama ujeedadeenu dowladnimadii soomaaliyeed oo qawiga ahayd oo sharafta lahayd oo go-aanka lahayd oo xorriyadda lahayd inay soo noqoto waay. taasuna waxay kusoo noqon kartaa dadka soomaaliyeed inay kasoo dhex baxdo ra'yigooda iyo taladooda iyo maskaxdooda iyo maalkooda ay kusoo baxdo. shirarkeennana waa maal gashan karnaa, annagaa maal gashan karna soomaali ahaan, annagaa isku filan, laakiin waa inaan isku kalsoonaana lana soo baxna. dadkeenana aan talada kusoo celinaaye aanan dad kala weydiin. maxaa u diidan madaxda masalan federaalka, madaxda dowladda inay dadka talada kusoo celiyaan dadka soomaaliyeed. hadda waxaan joognaa Cape Town baan joognaa, soo maaha jaariyad soomaaliyeed baa joogta, Johannesburg jaariyad soomaaliyeed baa joogta, ilaa 50,000 ilaa 100,000 oo Soomaaliya baa degan wadankan. talada maxaa loo weydiin la'yahay? maxaa qaab arday loogu soo ardin la'yahay? meelahay ku kulmaan maxaa loogu samayn kari la'yahay? maxaa loola kaashan kari la'yahay dowladaha meelahan jooga iyo dadka jooga in dadka Soomaaliyeed ra'yigooda la qiyaaso oo si xor ah loo qiyaaso. Minneapolis bay ka dhici kartaa, London bay ka dhici kartaa, waxay ka dhici kartaa Garowe, waxay ka dhici kartaa Muqdisho, waxay ka dhici kartaa Kismaayo, meel kastay ka dhici kartaa. gabadha iyo odayga iyo habarta iyo wiilka dhalinyarada ah iyo ardayga iyo kullaha ha dhiibtaan codkooda, taladooda ha dhiibtaan. taasaa Soomaaliya kusoo noqon kartaa. waa tahay daawadayaal, weli waxaad inagala socotaan telefishinka caalamiga Universal, gaar ahaan barnaamijka sahanka nolosha oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay Sheekh Maxamed Idriis Axmed oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed. Sheekh Maxamed Idriis, dhawaan waxaa dagaalo ay ka dhacayeen Hiiraan oo u dhaxeeyay qabaa'ilo Soomaali ah oo waliba walaalo ah. sidoo kale waxaa kasii horeeyay dagaal kale oo ka dhacay Gaalkacyo iyo agaarkeeda. hadda waxaa la sheegay waqti aan sii fogeen in dagaal kale oo dagaaladaas daba socdo uu maaragtay ka dhacayo meel aan ka fogin magaalada Beledweyne. yaa mas'uuliyaddeeda qaadaya dagaalada xilligan dib u soo laabtay ee ahliga ah? horta aad baan uga xumahay dagaaladaas, yani dadka Soomaaliyeed dhiigoodu maanta dhexdoodii inuu macna darro ku daato. waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala xarimayna ugu weyn shirki marka laga soo tago, waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhara walaa yaqtuluuna annafsa alatii xarama allahu ila bilxaq. naf xaq darro lagu dilo, shirkiga ilaahay loo shirkiyo kadib wax ka weyne ma jiraan. dhiig muslimah ama qof muslima dhibicna ha noqotay la daadi. waan ka hadlay anigu dagaaladii masalan Gaalkacyo ka dhacay oo Puntland iyo maxaan ku sheegay Galmudug iyo midaan ka dhacday masalan Hiiraan maalin dhaweyd, haddana waxa leeyahay ka soo cusboonaatay meel kalena ka dhici karto. arrinkaas horta waa dembi dadka Soomaaliyeed oo iyagu ogolaanaya inay dagaaladaas galaan ama ka horiyaan koobi ka yihiin mas'uuliyaddeeda dadka qaaday. cid allaale ciddii ku taageerta ama ka qayb qaadata ama gacan ku siisa iyaduna qayb bay ka noqonaysaa. ujeeda in la yiraahdo maaragtay khudooyin iyo faragelin shisheeye ayaa nagu khasbaysana, taas xujo uma noqonayso dadka Soomaaliyeed, waayo iyagu hadday wanaagsan yihiin faragelintu meel ay ka soo farageliso ma helayso. marka dadka Soomaaliyeed bay u noqonaysaa wada degan walaalaha inay ogaadaan oo caqliga iyo diinta intay xukumaan ayaan dhiigooda meel cidlaa ku daadin. wixii ka dhaxeeya oo khilaafa ama dhul ha noqoto ama xoolo ha noqoto ama hanti ha noqoto ay ku xaliyaan wanaag. dadka culimada iyo dadka waxgaradkaana dhexdooda ay islaaxiyaan sida loo baahan yahay. sidaas waaye dadka hurinaya waa dad aan maslaxad Soomaaliyeed ka talinayn, ciday doonaan ha noqdaan ama qabiilkay doonaan ha sheegtaan. qof maanta ka taliya in dad Soomaaliyeed xabad isu qaataan waa qof aan Soomaalina ka nixahayn, diinna u turihayn, adduunkuna meel uu maanta maraya xataa aan ogeyn. dadkiisa kabahala oo cagacad oo gaajaysan inuu dagaal geliyo maanta qofka ka taliya waa qof aan ummadda iyo diinta midna ka nixahayn. waa tahay Sheekh Maxamed Idriis, dalka waxaa laga hirgeliyey dhowr maamul oo markaad si qoto dheer u eegto dabada la gelayo dowlado shisheeye oo daris la ah Soomaaliya. arrintaas in badan waxay dhabarjab ku tahay dowladda federaalka Soomaaliya ay haatan ka jirto haba tabar darnaatee. sidee ayaad isleedahay arrintaas waa looga bixi karaa? maxaad ku waaninaysaa maamul goboleedyada iyo madaxda haatan hogaaminaya ee kaashanaya dowladaha ajaanibta ah ee Soomaaliya dariska la ah, isla markaana dana badan iyo challenge tartan badan hore ugu soo dhaxeeyay? dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan ama madax ha ahaadaan ama madax goboleedyo ha ahaadaan ama federaal ha ahaadaan ama culimo ha ahaadaan ama odayaal ha ahaadaan, waxaan u soo jeedinayaa iyaga iyo nafteydaba waxa weeye hal ujeedo inaan ka shaqeyno. ujeedadaasoo diin ku dhisan
diin bay ku dhisan tahay iyo caqli. waxa weeye halkaa ujeedo la rabo inaan ka wada shaqeyno waa sidii dowladnimadii Soomaaliyeed dowlad qawi ah ay ku jiri lahayd oo ku soo noqon lahayd. waxa yaroo marka inoo jira ayaa la rabaa in la xoojiyo oo la hagaajiyo oo la toosiyo. ciidan bay u baahan tahay. dowladdii markii ay sii dhaceysay qarankeena 120,000 buu ahaa ciidankeedu oo qalabaysan oo ciidan Afrika laga yaqaan. heerkaas baan taagnay. qaranka ilaaliya, hawada ilaaliya, badda ilaaliya, dhulka ilaaliya, sharafta Soomaaliyeed ilaaliya. marka waa inaan xooggeena isugu geyno dowladnimadeena siday ku soo noqon lahayd, taasoo ah in dowladda dhexe oo dalkeena in la xoojiyo oo ay noqoto dowlad xor ah oo Soomaali matali karta oo awoodaheedii iyo institutionadeedii ama muasasaadkeedii ay u dhan yihiin. hadday tahay tii ciidanka, dhaqaalaha, hadday tahay kuwii idaariga ah. taasaa laynooga baahan yahay. maamul goboleedyada ma xuma maamul goboleed inuu gobolkiisa qolo walba resourceskeeda waa wax adduunka la yaqaan, saa hore u sheegnay federaalku. laakiin iyaga laftigooda waxaa maslaxa u ah dowlad Soomaaliyeed oo xoog lihi inay jirto ayaa iyagana maslaxadu noqonaysa. mana kala hormari karaan oo ma samayn karno qofkii madaxiyo go-an gacantiisaan dhisaynaa ama lugtiisaan dhisaynaa suurtagal ma aha. ma garatay? guri asaaskiisii uu maqan yahay dabaq baan ka dhisayaa iyo daaqadaan u samaynaya, muraayadaan u samaynayaana wax suurtagal ah maaha. asaaskii dowladnimada qawiga ahayd ee gobolada habeyn lahayd, ee dhisi lahayd, ee maamul lahayd, ee kii tabardar xoojin lahayd, ilaalin lahayd, xuduudaheeda ilaalin lahayd haddaanay joogin, dowladda dhexe waxay ilaalisaa xuduudaha dalka oo qaranka, waxay ilaalisaa dhaqaalihiisa, waxay ilaalisaa daryeelka dadkiisa iyo canshuurta laga ururinayo iyo siday ugu noqon lahayd, waxay ilaalisaa siyaasadda dibadda iyo xiriirada ay dowladdaasu national la leedahay adduunka. laakiin in loo dhiso gobollo iyaga la xoojinayo ama la naas nuujinayo ama meelo kale laga soo dhisayo, dowladdii dhexena sidaas ay ku burburto amaba lagu burburiyo, arrin maslaxa inoo noqonaya ma aha. waan ujeedaa gurbaanka in loo tumanayo hadba qolo walba in meel looga dhiso, laakiin waxaan leeyahay taas waxaa ka horeysa inaad horta dowladdii Soomaaliyeed la wada dhiso. waa tahay Sheekh Maxamed Idriis, haddii ay noqoto wanaajinta mustaqbalka jiilka Soomaaliyeed maxaa muhiim ah in la sameeyo oo aad kula dardaarmaysaa weliba dowladda Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo weliba dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan? dadka Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa meel kastoo ay joogaan inay Ilaahay ka baqaan, Ilaahayna u toobad keenaan. waxa inagu dhacaya oo laynagu saliday ama cadow dibadda ka yimi ama mid gudaha ha noqdee oo dhiiggeena daadinaya oo dhulkeena burburinaya waa macaasi iyo dembiyo inaga aynu kasbanay. midda koowaad waxaan leeyahay aynu dhammaanteenba Ilaahay u toobad keenno oo ula nimaadno daacadnimo, qalbigeena saafihan ka dhigno. qalbigeena hadduu Ilaahay ka ogaado inay daacadnimo iyo ikhlaas uu ku jiro, Ilaahay subxaanahu wa tacaala umuurta waa noo islaaxinaya siduu saxaabadaba Ilaahay ugu islaaxiyey, siduu dadka muslimiinta Ilaahay ugu islaaxiyey oo uu yidhi alla subxaanahu wa tacaala laqad radia allahu cani lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati facalima ma fii quluubihim. qalbigoodu Ilaahay ogaaday. ilaahayna wuxuu dadka wuxu bedelaa markay naftooda wax ka bedelaan. in allaha laa yugayiru ma biqowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeya ya ayuha nabiyu qul liman fii aydiikum min alasra in yaclam illaahu fii quluubikum khayran. qalbigiina hadduu Ilaahay khayr iyo daacadnimo iyo iimaan ka ogaado, wax ka khayr badan baa Ilaahay idin siinaya. marka hore dadka Soomaaliyeed guud ahaan madax iyo majal waxay u baahan yihiin inay Ilaahay u toobad keenaan. waxaa inagu dhacaya waa masaa'ib, dembi aynu kasbanay, inagu aynu maaragtay isnacnay, inagu aynu isximinay, inagu dhexdeenna ay maaragtay qabyaalad aynu maaragtay isu ximinay oo dhulkii ina qaadi kari waayey. aan isu ogolaan weyne annagu inaan isdeeqno oo aan is ogolaano. dhulkan dadka Soomaaliyeed oo dhan buu ka dhexeeya. qolo tirtiri kartaa ma jirto, qolo meesha ka saari kartaa ma jirto. magaalooyinkan dadka Soomaaliyeed way ka dhexeeyaan. dhulkan baa Ilaahay Soomaali dejiyey, waa inay ku imaansataa oo is ogolaataa. qolo meesha laga saari karaa ma jire. taas waa midda koowaad. midda labaadna qofka mas-uuliyad loo dhiibaa ama ha noqdo dowladdan dhexe ama ha noqdo dowladaha kaleba waa inay ka taliyaan mustaqbalka ummadahooda iyo dalkooda siduu noqon lahaa. taasuna waxay ku imaanaysaa labada arrin oo Ilaahay sheegay qur'aanka inay yeeshaan. ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin. aqoon qofka shaqada qabanaya inuu u leeyahay oo loogu doorto, iyo ammaano inuu u yeesho wixii loo dhiibo aan waxba ka luminayn waxna ka lunsanayn. labadaas haddii la helo mustaqbalka insha allahu tacaala dadka Soomaaliyeed ama jiilasha soo socda waxaan rajaynayaa inuu Ilaahay mid
iftiimaya ilaahay subxana wa tacaala ka waa gartay qaybihii ugu dambe barnaamijkan soo gaarnay ugu dambeyn Sheekh Maxamed Idriis Soomaaliya waxaa ka jiro koox dhalinyaro ah oo aad la socoto oo dowladda dagaal kula jiro dowladda federaalka Soomaaliya waxaa laga yaabaa maanta hadalka tiraahdo in boog muddo soo xanuunsaneed oo jirneed inay ku bogsato dhalinyaradaas maxaad u direysaa dowladda se maxaad u sheegaysaa horta dhalinyarada iyo dowladduba waxay ka mid yihiin dadka muslimka ah ee Soomaaliyeed aan leeyahay ilaahay ha u toobad keenaan oo dhulkoodii weeye waxa maanta ay ka socotaa dhibaatadu ka socotaa dhul kale maaha yani meesha ay ka socotaa waa dhulkaagi marka dhalinyaradaas dad badan bay isugu dhex jiraan saan leeyahay dad yani laga yaabo diin si qalad inay u fahmeen ama si qaloocan inay u fahmeen dhalinyaro laga yaabo xamaasad inay diinta wax taraan inay rabaan ficlan inay tahay laakiin wadadii ka qaldan tahay waa la soo dhexgeli karaa sida meel kasta loo soo dhexgalo oo dad kaleeto inay howlo kale ku fushadaan marka waxaan leeyahay dhalinyarada guud ahaan haddii ay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay yihiin waxa ay doonayaan iyo raalnimadiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku amray dadka muslimiinta ah inay ka nabad galaan gacantooda iyo afkooda qofka muslimka yaa muslimka ugu khayr badan baa layidhi ugu khayr badan baa la weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi marka dadka Soomaaliyeed dhalinyaradaas ay doonayaan inay wax taraan oo maqsuudkooda uu saas yahay saasaan rajaynayaa inay u turaan way inay iyaga dhigooda dumiyaanna maaha inay sababtooda ka shaqeeyaan dhulkooda inuu ku burburo maaha inay ka shaqeeyaan in cadow ku soo duulo oo sabab uga dhigto nimankaasaan raadinaya sabab uga dhigto ma aha waa inay u turaan oo dadka dhigooda badbaadiyaan oo dadka Soomaaliyeed waa walaalahood iyagay ka dhasheen iyagay la dhasheen iyagay rabaan inay wax u qabtaan naftooda waxay u horayaan sida ay iyagu leeyihiin inay Soomaali wax taraan oo dhulkeeda iyo diinteeda badbaadiyaan mar hadday taas tahay waxaa la rabaa inaad u turto dadka Soomaaliyeed oo dhigooda iyaga aadan daadin masaajidada ku daadin iridaha u istaagin jidadka ku qarxin meelo kale ku samayn inaad nabad geliso maxaa yeelay qofka muslimka ah nebigu calayhi salaam wuxuu yidhi haddaad dadka wax u tari kartana waa inaad wax u tartaa haddaadan wax u tari karin dhib ha gaarsiinina gacantaada ka cesho waa sida qofka muslimka looga baahan yahay dowladdana waxaan ugu naseexaynaya inay ka shaqeeyaan ciddii allaale ciddii lagu qancin karo iyo ciddii lasoo maaragtay lala hadli karo wax la fahamsiin karo haddii ay go-aankooda u leeyihiin waana saan rajaynaye inay xor u yihiin inay la hadlaan ciday la hadli karaan qancin karaan ciday qancin karaan cidii kaleeto oo markaa dee la iska qaban kari waayo la isugu tago muslimiinta oo dhammi siduu ilaahay subxaanahu watacaala uu yiri wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu faaslixuu baynahuma fain bagat ixdaahuma cala alukhraa faqaatiluu alatii tabgi xataa tafiya ilaa amri illah qolada lala dagaalamayo markaa laftigeeda waxaa la rabaa inay muslimiinta usoo noqoto ee iyada laftigeeda lama gaalaysiinayo oo diintii lagama saarayo lakin waxaa la rabaa inay muslimka taladooda usoo noqoto marka dhammaanba si looga wada shaqeeyo dalkan aynu u dhalanay ee dhammaanteenba dadka muslimka ee Soomaalida ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadihiisa islaamka ka mid ah in dal ay yeeshaan oo dalkooda uu nabad ahaado sharaf bay u tahay shabaab iyo dowladda labadaba waa tahay Sheekh Maxamed Idriis aad iyo aad u mahadsantahay sida wanaagsan ee barnaamijka aad nagala qayb qaadatay jazaakumullahu khayr barakallahu waa tahay daawadayaal intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka sahanka nolosha oo aan idinkaga soo gudbinayay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika isla markaana toddobaadkan aan ku wareysano oo nagala qayb galay Sheekh Maxamed Idriis Axmed oo kamid ah culimada diinka Soomaaliyeed barnaamijka waxaa la socodsiinaya anigoo Cabdikariin Mursal Faaraxa intaan ku kulmi doono toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafeynaa sida ay nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala